بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. madaxda axsaabta mucaaradka ah ee halkan joogta, xildhibaanada qaranka ee halkan jooga, dadweynaha taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah, saxaafadda iyo dhammaan dadka halkan jooga waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka xigta waxaan hambaliyeynayaa oo halkan ka hambaliyeynayaa dhammaan taageerayaashii iyo dadweynihii reer Somaliland ee isbeddelka u codeeyay ee codkooda siiyay axsaabta mucaaradka ah. waxaan si guud ugu hambaliyeynayaa dadweynaha reer Somaliland meelay joogaanba oo si nabadgelyo ah u codeeyay muddo 2 biloodana foolinayay inuu dhismo shirgudoonkii golaha wakiiladu oo hawl badan iyo tacab badan ay ka soo mareen. waxaan hambaliyeynayaa xubnihii golaha wakiilada ee saaka u codeeyay shirgudoonka cusub, anigana iigu doortay guddoomiye, oo aan leeyahay kuwa ii codeeyey iyo kuwa iga codeeyey waa golo qura oo magac qura leh oo ah golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Somaliland. waanan hambaliyeynayaa dhammaantood inta ay la egyihiin. waxaan rajaynayaa in insha Allahu tacaala waqti badan oo inaga lumay muddada 2 bilood ee isriixriixu jiray aynu u gudi doonno una abaal gudi doonno dadweynihii muddada dheer milicda iyo bacadka inoo taagnaa, dadweynihii inaga dhur sugayey inaynu isbeddelkeenno insha Allahu tacaala. waxaan rajaynayaa idamka Ilaahay inuu noqon doono golahan maanta odayga la iiga dhigay gole dalka wax ku soo kordhiya, hadday noqoto hawlihiisa gaarka ah ee loo igmaday iyo hadday noqoto hawlaha iyo qabyooyinka badan ee qaran ee ina hor yaalla inuu qaybtiisa kaga beegan insha Allahu ka qaato. waxaan rajaynayaa inuu golahan noqon doono gurmad qaran oo qaranka u gurman doono idamka Ilaahay. waxaan rajaynayaa muddada 2 bilood oo waqti badan inaga lumay oo hadday xukuumad noqoto iyo hadday xisbiyo noqoto iyo hadday golayaal noqoto midnaba aanay ka shaqaynin dantii caamka ahayd inteedii badnayd ee lagaga mashquulay hawlihii doorashada inay soo kabi doonaan ama gudi doonaan, waqti badanna gelin doonaan sidii danta caamka loogu jeesan lahaa, sidii loo midayn lahaa dadweynihii ay kala irdhaysay xanaftii doorashadu ayna uga dambaysay xanaftii kale ee shirgudoonka. waan rajaynayo hadday noqoto xisbiyada qaranka oo isku mid ah, dantooduna mid tahay, ayna tahay inay dalka iyo dadka u shaqeeyaan, inaynu dib dadkeenni u ururin doonno haddii Ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaro. waxaan rajaynayaa in golihii aan odayga u ahaa ee la ii doortay aan ururin doono, midayn doono, habayn doono insha Allahu tacaala. wax kasta oo qabiyo oo ka jiray golahana aanu gacan bannaanaan doono. waxaan rajaynayaa waqti badan aanu gelinno haddii Ilaahay raalli ka noqdo in dadkaana soo doortay ee tabashadoodu weyn tahay oo aan hubo inaanan dabooli karin baahiyaha yaalla ee ay dareemayaan iyo filashooyinkooda ah wax xaqna loogu leeyahay iyo waxaana loogu lahaynba inaanan dabooli karin waan hubaa. laakiin waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala inaannu dadaal badan samayn doonno. waxaan weydiisanaynaa dhammaan bulshaweyntiina soo dooratay annagoo uga mahadnaqayna doorashadii iyo isbeddelka ay u codeeyeen inay noogu duceeyaan insha Allahu tacaala in Ilaahay nagu garab galo. waxaannu weydiisanaynaa madaxda axsaabta qaranka iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba inay golaha kala shaqeeyaan inuu sidii u gudan lahaa xilalkiisa iyo waajibaadkiisa haddii Ilaahay idmo. waxaannu ballan qaadaynaa golo ahaan inuu noqon doono golahani golo dhammaystira golayaasha kale ee qaranka ee dalku leeyahay ayna aanuna